السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي ساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماء والأرض وما بينهما الله الذي خلق السماء والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله هذا ما شاء الله. هذا وير فريستا انتي تنا تاغن فريستا inaad fadhiisataan baa fiican, ismaqalkaa fiican fadhiista. yar fadhiista qof walba qofka ku kor taagan yar fadhiista ma sha Allah. yar fadhiista insha Allah. aan ismaqalna insha Allah fadhiista walaalayaal. khayr baa inaga muuqda. diin jacayl iyo khayr jacayl baa inaga muuqda. Allah idin ziyaadiyo. Amiin dhahada. ay fadhiista insha Allah. halkeena fadhiista. yar ka durqaya kuna ha fadhiistaan. inaguna u yar waasici ha fadhiistaan ma sha Allah. ما شاء الله هذا إلهي بينون نعمه إلهي نعمته ودوشنا دغاي hadii la isiraado hal la tiriyo la koobi maayo lama soo koobi karo. إلهي عز وجل نعم فربنا بينسيه نعمة أقوى إن إلهي ونقول دقي ونعمة إسلام نمد ويان دين تأيا قاليا وفلي وقفي دين تعلاقة النسبة الله يشان دين تقالب يكدقيسا
iskada qof bini aadane dhagax diinta cilaaqa la yeeshay ayay diintu qiimo u yeeshay xayawaan hadday diinta cilaaqa la yeeshaan xayawaankaasi xayawaanka kale uu ka qiimo badnaan dhul hadduu diinta cilaaqa la yeesho dhulkaasi dhulka kale uu ka qiimo badnaan iminka meel xaafad laga dhisay iyo meel iskuul laga dhisay iyo meel dhakhtar laga dhisay iyo meel suuq laga dhisay iyo meel maskiin laga dhisay meesha qiimo badan yaa meesha qiimo badan bal sheega masaajidka qiimo badan wa anna almasaajida lillahi falaa tadcuu maca allahi axada masaajidka ilaahay baa iska leh ilaahay baa lagu baryayaa ilaahay baa loogu sujuudaa ilaahay baa lagu weyneeyaa ilaahay baa lagu xusaa galadda aad masjidka soo gashay ilaahay baad ugu dhowaan fadhiga masjidka aad fadhiisatay ilaahay baad ugu dhowaan fadhiista intaynan taagan fadhiista dee yar fadhiista halkiina un fadhiista walaalayaal ismaqallo qof sara jooga la dooni maayo sheekhana fadhiisiya sheekha laftigiisa fadhiisiya uu daalay fadhiisiya iska fadhiisa dhahada yar fadhiista intiina sare taagan fadhiista haddaad meel aad fadhiistaan aad weydeen dibadda fadhiista ordo masaajidka qiimo la marka man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu baytan fi ljanna buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka masaajid ilaahay dartii u dhisa meel ilaahay loogu sujuudayo oo ilaahay lagu weynaynayo oo ilaahay lagu ammaanayo oo diinta ilaahay lagu baranayo qofka ilaahay dartii u dhisa isagana ilaahay aqal buu jannada uga dhisaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayaa xajarul aswadka ayuu dhunkanayay markaasuu yidhi innii la aclamu annaka xajarun laa tanfacu walaa tadur walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yuqabiluka maa qabiltuka buu yidhi cumar binu khadaab xajarul aswadkuu dhunkaday wuxuu yidhi waan ogahay dhagaxow inaad tahay dhagax waxna aanan dhibaynin dheefna aanan haynin haddaanan ku arki nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhunkanayana kuma dhunkadeen buu ku yidhi laakiin waxaan kugu dhunkanayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baan arkay isagoo ku dhunkanaya waa dhagax laakiin dhagaxaasi maadaamuu cilaaqo la yeeshay ilaahay casa wajalla iyo rasuulkiisii calayhi salaatu wasalaam taasaa markaa dhagaxu qiimo ku yeesho lagu dhunkanayaa dhallinyar iimaankooga inay xafidaan la baxsanaya asxaabulkahaf ilaahay jalla wacalaa waa keenoogaga warramay qisadooda suuratulkahaf suurad aad u qiimo badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi awalkeyga qofka akhrista buu nebigu yidhi maalintii wa fii riwaayatin tobanka dambe iyo tobanka hore labadaba axaadiistu waa ku timidee fidnadda dajaal baa ilaahay ka ilaaliyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam suuraddaasaa markaa lagaga warramay dhallinyaradaas zaman waxay arlada korkeega ay joogeen dadku ay yihiin wathaniyiin dadka ay dhex joogeen waxay ahaayeen dad dhagax iyo qoryo iyo bini aadan sidooda caabudaya ayay ahaayeen laakiin dhallinyarada ilaahay wuxuu ku galladaystay inay ilaahay ay rumeeyaan oo aakhirada ay rumaystaan oo ay gartaan ka cibaadada mutaystay inuu yahay allahu rabbulcaalamiin keligii leedna markaa boqorkii markaa dalkaa haysanayey oo dadka ugu yeedhi jiray inay isaga caabudaan ayay cibaadadiisii markaa ku kufriyeen oo yidhaahdeen may adu makhluuq baa tahay makhluuq sida iyadoo kale ayaa tahay in laguu sujuudo markaa adigu uma qalantid bay ku yidhahdeen ka sujuudda u qalma waa allahu rabbulcaalamiin keligii weeyaan leedna jawaasiistii boqorku uu lahaa ayaa u warrantoo tidhi niman dhallinyaro ah ayaa dalkeenna ka soo baxay adiga cibaadadaada iska diidan oo leh annagu dad muslimiina ayaan nahayo diintii xaniifka ilaahay nebiyada uu soo dhiibayey ayaan maaragtaane annagu aan rumaysannahay bay yidhaahdeen diin alislaam ina addiina cinda allaahi alislaam ilaahay agtiisa diinta laga yaqaanaa waa alislaam alistislaamu lilaahi caza wajalla waalinqiyaadu lahu bitaaca in dadku ilaahay caza wajalla keligii ay u hoggaansamaan
oo keligii ay ka amar qaataan oo waxa ilaahay ka soo haray oo dhan cibaadadiisa aynan la wadaajin oo dariiqa ilaahay loogu dhowaanayana uu yahay dariiqa ambiyadu ay noo jeexeen marka boqorkii baa markaa ciidan buu u soo diro wuxuu yidhi dhallinyartaa soo qabta una digo waxaad ku tirahdaan laba mid ha laynigu yimaado inaad maaragtaan milladiinnii hore ku soo noqotaan ee ahayd inaad aniga i caabudaan oo waxaa dadka waddanka ku nool ay caabudayaan ininkuna aad la caabudaan iyo in intoo layni qabto meel intoo laynagu xidho dhagax tur laynagu dilo marka dhallinyaradii way shuuraysteen markaas waxay yidhahdeen sideen ku badbaadinaa diinteennan islaamka ilaahay nagu galladaystay seen u badbaadinaa markaas islaamnimadu waa qaali weeyaan dalkoogii iyo noloshoodii iyo diintoodii bay kala doorteen iyagu diinta dalkaaga iyo diintaada midkee qaaliya war midkee qaaliya diintaada iyo qabiilkaagana si fiican u sheega taas soomaalidu sidaa way ka duwan tahay laakiin diintaada iyo qabiilkaaga diintaa qaaliya ha naftaada iyo diintaada diintaa qaaliya diinta waa iyo nafta waa midkee markaa la dooranayaa ya nafta waa marka dhallinyarada waxaa loo doorbiday inay dalkooga iska joogaan ee nabad ku joogaan laakiin aabbayaashood waxay caabudeen ay la caabudaan shirkigiiyo gaalnimada inay ku jiraan waynan ahayn intoo la qabto ayaa meel lagu xidhi deedna dhagax tuur baa lagu dili innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abadaa waxaa ilaahay qalbigooda ku sharxay inay iimaanka iyo islaamnimada ilaahay ku galladaystay ay ku liibaanayaan oo hadday diinta islaamka ay ka tanaasulaan oo wax kale ay ka doorbidaan inay weligood iyo allahooda aysan liibaanaynba qalbigooda ilaahay ku sharxay waa yaqiintii maanta sheekooda waa uu nagala hadlaayay yaqiin cala alislaam yaqiin cala addiin marka waxay doorbideen inay dalka waayaan qaraabadooda ay waayaan oo raaxadooda ay waayaan weliba waxay culammadu ay yidhaahdaan awlaaddaasi ma ahayn awlaad fuqaraaya ma ahayn awlaad waxay ahaayeen aabbayaashood ay yihiin madax iyo maalqabeenno innaka ciyaalka maalqabeennadeennu ma qur-aankay dhigtaan mise iskuulka macallin qur-aanka ayaa loo geeyaa bal sheega macallinka dugsiga haya kee loo geeyaa maalqabeenka ilmihiisu macallin u geyn maayo dugsi geyn maayo iskuul buu geyn weliba iskoolku ka qaalisan yahay buu la doonan weliba waddankan intuu ka qaado waddanno kala geyn maxaad u geynaysaa waddannadaas wuxuu leeyahay tacliim baan rabaa ciyaalku inay wax soo bartaan qaar tacliin may soo bareen waxay soo barteen sida khamriga loo cabay soo barteen kuwa ilmahooga meel daran iyo daadees kala dhacay ubadkooga waxay u soo noqdeen iyagoo maandooriya maskaxdoodii uu abshax ka dhigo maskaxdoodii dilay macallinka qur-aanka waxaa loo keenaa maaragtaane macallin qur-aanka kuwa maaragtaane ducafada ee kharash iskoolka ay ku aadaanna aanin haysan baa macallinkana iga hay macallin ilmaha dugsiga ha jooga dugsiga mid baa lagu yidhi ilmahaagu muxuu bartaa markaasay tir qur-aan yar buu bartaa qur-aan yar muxuu bartaa qur-aan yar buu bartaa dhallinyaradaasi asxaabulkahf ee qur-aanka ilaahay kaga warramay ma ahayn dad fuqaraaya kamay soo jeedina maalqabeennay ka soo jeedeen aghniyaa bay ahaayeen awlaadu laghniyaa aabbayaashood maalqabeen bay ahaayeen baa la yidhi marka waxay garteen in ikhtibaar uu ku socdo uu xagga ilaahay ikhtibaar kaga socdo laannahu ilaahay nicmadda islaamnimada qofka uu ku galladaysto laabudda waa in ikhtibaar marka uu yimaadaa waa in qofkan la eegaa islaamnimadu ma ka dhabba mise ka dhab maaha لأنه waxaa loo doorbiday dalkoogii iyo qabiilkoodii iyo raaxadoodii iyo naftoodii iyo diintoodii afartaasoo dhinaca waa iska noolaanaysaan dalkiinaad joogaysaan raaxadaabaad ku jiraysaan qaraabadiinaad dhex joogaysaan afartaa gooni weyn halkaa dhig haddaad afartaa aad diidaan
وأين ضلكي نسكتان ساد أفرتا أدوغا بحثتا دينتا أدو بدبادستان وحيدا وأين ضلك الساقن وحاسور نمو وأين الساقنو لكن دينتا إسلام كيانا ساقن marka waxay door bidaan inay dalka ay saagaan oo reerahooga dadkooga ay waayaan oo raaxadooda ay waayaan walaakin diintooda inay san waayeen bay door bidaan diinta qaaliya bay baxaan dhuumashay ku baxaan mid iyaka kamid ahaayo isku caqiida ahaayeen oo isku iimaan ahaayeen oo ilaahay isagana islaamnimada ugu galladaystay kaasa marka ayga watay baa leeyahay kaasa ayga watay oo aygan wuxuu ahaa xoolaha dadka la raaca markaas ay ku yiraahdo aygaagan uu na sheegay naga reeb ilaa anako baxsad baana wala na raadinaya markaas si walba aygi inuu ka reebo damcay aygi ba ka hari waayay baa iska diiday aygu inuu hado hatta kulligood dhagax intay qaateen ba ayga harraa kala mareen say bal ayga iskaga reebaan luqaday ay ku wada hadlayeen iyagu aygu ku hadlo wuxuu yiri ilaaha aad garateen u ban aniguna aqaanaay maxaa ka reebaysan buu ku yiri ay yaana ka dhawaajiyo ilaahay ba ka dhawaajiyo ilaahay markuu doono inuu adig ku hadeeyo meel kasto ilaahay asbaab al-hidaayah ku soo dhex marin kara waa ay ba ilaahay ka dhawaajiyo yiri ilaaha aad garateen eed cibaadadiisa iyo iimaankii macrifadiisa aad la baxsanaysaan inaad badsataan aniguna allaha un baan aqaanaa ku kala ma aqaanee maxaa aniga saaka reebaysaan لأن أي جالس دنيرة والله بحوا إسكت دافن مركز مركو اللغة دي كلها على وإسكت داين لأنه خوارق العادات وأوحن ولي قول أينن أركن أي سن ملايين نبهرتو ذاك ظاهرا لأن أي جا قرآن كان له شيء كرامة دنيرة أي هلين أي جنا والله قبي قرآن كأيك له شيء أي جنا والله شيء ولا جمر ريبين بل علماء قار وحيد هذا حيوان كجنة إلهي وقلين دونه كوار يدون أي قصة كمدة بالليل هذا أي سلام بدو أي بقيمة أو شيء سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم مركات راضبة وكنت حسنا ويان من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها سنبي مولانا عليه الصلاة والسلام كلبهم مركات هذا وشن حرف ويان شنتا حرف وحلق وقول فنيا طبعا حسنات وكنت حسنات لكن أيجا بنان كامرا يا ور أيجا ماشي محاس عمري هذا ترى رجع حدوق هذا تو عندنا أجر كقري ميسو لكن في سورة الكهف مركات آخرين القرآن كدحلي سي أيجا على هذا القادد با حسنات بلقوا قريا لماذا؟ لأن قصة أيجا إلهي بقرآن كي نوجو شيء قرآن كشيء قال له شيء هو شيء قيمة بدنا صومه قرآن خبر ما هنا والنبأ قل هو نبأ عظيم ولا تعلمن نبأه بعد حين عما يتساءلون عن النبأ العظيم نبأ قرآنك والنبأ بمعنى ورك قرآنك وديبي وور حقيقة أو يقينية بركة قرآنك إلهي كل شيء أيقاس ولبا إلهي بكهذا الشيء يركسي إلها أتقرتين بنانيقنا أقاناي محاساك الرئيب سنبو كيري سيدي نكي مقالة مدينة أعرابيقا النبي عليه الصلاة والسلام مركو مقالة مدينة وسوقاري نين أعرابي ومقالة مدينة دولت كي قد قنا أيا حوله سناف كمدو دروا كدفي ييبا كدفي لأن مركاسو كسور رتيبا الليل ييبا انتو صوء يجيبو كيري رزق إلهي أفكو ويسوقري إنا آدنو محادي يقرر رتيبو كيري ودروا أو كلمة مثلا رزق إلهي أفكو يسوق لي إن آذنه محادي قردتي مرقص نك دقها قبصده وحجر وعجباه الذئب يتكلم كلام الإنس ما يجيب اللغة بن آدم كيقولها الله يجيب جوابه وحكيري وحا أنك إيقا عجب بدن باكو شاقي محمد عليه الصلاة والسلام ومقالة مدينة سوق قاري ووركي السمد إلهي أسودي بن آدم كأوغا والرمية ودadku ay la yaabayeen taas ayaga yaab badan orado Madiina tag buu ku yiri durwa ya ka hadliyana Allah rabbul alamin saxaabigi Allah raali ka noqday xoolihiisa intuu isku urursaday ay soo kaxayo magaalada Madiina soo galiyay deedna isla markiiba wuxuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo masaajidkiisa dhex taagan oo nabigeebi uu tagay ninkii Araabigu ya Rasuulallah arrinkaas aan arkay
markaa buu nebigu saxaabada u yeedhay asalaatu jaamica buu nebigu yidhi asalaatu jaamica ereyga hadday saxaabadu ay maqlaan waxay ogaan jireen in baahi diineed masjidka nebiga ay taallo oo nebi maxamed xaggiisa baaq inuu ka yimid bay ogaan jireen daadna nin walba markaa shaqada u haya markaa uu dhigaayey ka reerka jooga guriga uu ka soo baxayey ka meherada jooga meherada uu ka soo dhaqaaqayey ka beerta falanaya beerta uu joojinayey ka dukaanka jooga dukaanka uu xidhayey haddii ay maqlaan asalaatu jaamica ereygaa haddii ay maqlaan waa iclaan weeyaan bimacnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inii baaqaya muslimiinay soo ajiiba hadday saxaabadu ay maqlaan nin walba shaqada uu markaa gacanta uu ku hayo halkaa intuu dhiguu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam waa taa iminka innaka ijtimaaca laynoogu yeedhay weeyaan kulan diineed baa jira macneegu waa maxay baaq diineed baa jira soo ajiiba weeyaan yaa macshara almuslimiin markaz alhidaaya jamaaco keliya maaha waxaa ku kulmaysa ummadoo dhan baa loogu baaqa ijtimaaca inay ka soo qayb gasho oo waxaa la leeyahay war kulan diineed baa jira nuqsaan diineed baa caalamka taalle nuqsaan adduunye maanta adduunyada ma taallo nuqsaan adduunyo adduunka ma taallo bal adduunyadu maanta way beertay nolosha bini aadamkuna cidhiidhi bay sii galaysaa haddaan doonayna inay bini aadamku cidhiidhiga ay ka baxaan waa rujuuc ila diin waa in diinta loo soo noqdaa markaa nuqsaan diineed baa dalkeenna iyo caalamkaba taalle nuqsaantaa diineed saan u kebi lahayn ayaa laynoogu baaqay kulankaa diineed ka soo qayb gala zamankii nebiga waxaa loo jiray asalaatu jaamica hadday saxaabadu ereygaa ay maqlaan waxay ogaan jireen ay garan jireen in masjidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka jiro maaragtaane baahi diineed iyo dalab diineed shaqada nin walba uu hayay intuu dhulka dhigo ayuu masjidka nebiga iman jiray calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam markii masjidka nebiga lasoo buux dhaafiyey sidaa inakuba hadda aan u soo camirnay masjidka nebiga saxaabadu u soo camireen laakiin innakiyo saxaabadu waxaan ku kala duwannahay aadaabta maxaan ku kala duwannahay war maxaan ku kala duwannahay aadaab salaadii maqrib salaadii fajar buu nebigu tujiyey jamaca fii xajati alwadaac mambarkuu fuulay khudbad buu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga lagu yidhi yaa rasuula allah salaadii duhur baa la gaadhay xilligeedii uu ka daadegay nebigu calayhi salaatu wasalaam duhurkii oo qasrigu nebigu saxaabada tujiyey haddana mambarkuu dib ugu noqday casarkii baa gaadhay baa nebiga lagu yidhi uu ka daadego 2 ragco casarkii buu nebigu tujiyey haddana maqribkii baa gaadhay baa nebiga lagu yidhi salaadii maqrib buu nebigu khudbadu subaxdii bilaabay ku joojiyey mayna soomaneen asxaabta rasuulka biyana may dalban fadhigay fadhiyona may bedelin baa la yidhi khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu fajarkii bilaabay ilaa iyo maqribkii saxaabadu waxay yidhaahdeen wixii tagayna nebigu waa ka warramay waxa joogana uu ka warramay waxa soo socdana nebigu uu ka warramay ninkii noogu qalbiga fiicnaaba noogu cilmi batay bay yidhahdeen asxaabtu maalinkaas inaku aalaad baa sidanaa oo iminka wax ku duubannaa saxaabadu aaladday haysteen tay ahayd bal sheega war bal sheega dee qalbiga iyagu ku duubanayeen wax qalbiga iyo aadaab labadaas bay lahaayeen qalbi soo jeeda iyo aadaab iyo ixtiraam bay ku fadhiisanayeen markay nebiga hor fadhiyaan salaadii maqrib fajar markuu nebigu mambarka fuula maqrib buu ka daadegay hadalladu ku soo gebagabeeyana waxaa ka mid ahayd laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum aniga nebina igama dambayn doono ininkana ummad inigama dambayn doonta buu nebigu yidhi kiina xaadirka ilo joogo kiina maqa gaadhsii buu yidhi kiina xaadirka halkaa joogo ka maqa gaadhsii lidaalika saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin asalaatu jaamicatun haddii ay maqlaan maaha ereygaasi aadaan maaha aadaanka markii dambe siiqadda aadaanka ilaahay ummadda u furay laakiin mar kastoo baahi diineed uu nebigu saxaabada u raba inuu la kulmaba waxau odhan jiray ereygaa dhahada buu odhan jiray asalaatu jaamica markaasaa masjidka lasoo buux dhaafin jiray markaa buu nebigu u yeedhay ninkii carabigii kaalay waryaa buu yidhi waxaad aragtay halkan joogso ummadda u sheeg buu ka yidhi waa ninkii carabigii ee dhurwaagu la hadlay ku salliya rasuulka
توجهوا أحباب. markaasuu uga waran yidhi waxaad la kulantay u sheeg asxaabta. xayawaan hadlay oo xaq ku hadlay yaa ka hadliye allahu rabb alcaalamiin jala jalaaluh. marka diinta qaaliga shaygii diinta cilaaqa la yeeshana diintu qiime u yeelaysaa, waana waxa keliya ilaahay bini aadamka ku qiimeynaya ogow diintu. ina akramakum cinda allahi atqaakum. diintaa qiimo leh. dhulkii bay qiimo u yeeshay, ay bay qiimo u yeeshay, shimbir bay qiimo u yeeshay. hudhud fii zamani sulaymaan calayhi salaam. watafaqada aطayra faqaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin. hudhud waa muhandis. dhulkuu eegaa baa la yidhi shimbirkaas, meesha biyuhu ay ka dhow yihiin buu nebi sulaymaan u sheegi jiray baa la yidhi. ninka injineeradan ceelasha carraday bartaan, meesha biyuhu ay ka dhow yihiin dhirtay eegaan, dhirta iyo hawada iyo cimilada iyo ciidda waxanay soo bartaan. iyo bini aadamku cilmiga uu bartaa. limaada muxuu bini aadamku cilmiga la baranayaa? lianna bini aadamku jahli bay la dhashaan. ama xayawaanku baa la yidhi aqoonta way la dhashaan, iyo ilaahay baa ku beeray aqoonta. shimbirkaasi wuxuu yaqaanaa dhulku eegaa, halkaa biyuhu 2 mitir bay jiraan, halkaa biyuhu 100 mitir bay jiraan, halkaa biyuhu 1000 mitir bay jiraan. dadna markaa buu nebi sulaymaan buu u sheegi jiray calayhi salaam. nebi sulaymaanna markaa cafaariiddu markaa amar siin jiray, cafaariiddaa markaa biyaha markaaba soo tuuraysay. ilaa nebi sulaymaan ilaahay wuxuu siiyey mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdihi. mulk cadiima